waxaa kaloo cajiib ahayd inuu dalbaday 4 baarshood mid noociisu yahay midka stamkiinka ama lagu barbarto halka labada kalena ay yihiin kuwan package oo dheerdheerka ah FBI-da waxay ku qasbaneed inay keenaan wuxuu rabo si ay u badbaadiyaan 36 qof ee rakaabka saaran isla markii waxaa dhacday in baylota FBI-da ay ku wargeliso aynu ku dhahdo waa diyaar sidaa rabtana waad helaysaa elaborka Siaslow markay ku soo degtay isla markii shidaal ayaa lagu shubay diyaaradda wuxuuna Cobra wuxuu amray in loo duulo dhinaca iyo xaduudda Mexico laakiin wuxuu saaray shuruud adag yaab ka lahayd waxay ahayd in diyaaraddu ay inay joog hoosa ay ku duusho ama in ka badan 450 mitir waxay haataba baylotkii ayaa ka aqbalay inuu diyaaradda aadiyo dhinaca iyo Mexico asagoo dhahay waxaana ku duushaan saacaddu waa 8:14 habeenimo diyaaraddu Pine waxay dhex maraysaa duufaan weyla bacsan oo ka jiray xaduudaha iyo dhinaca iyo Mexico waxaa kaloo jiray inay ahayd xilli roob oo habeen ku beegan ay ahaataba diyaaradda Boeing oo amuran shaqaalihii diyaaradda waxay dareemeen inuu jiro isbeddel weyn taasoo cadaadiska hawada iyo albaabka dambe ee diyaaradda ay ka dareemeen waxay ku socotay iyadoo albaabka dambe aan xirnayn Cobra wuxuu damacsanay qorshaha ah in uu markii lacagtan gacantiisa soo gasho kadibna uu baarshuudka u qaato dhinaca hoose ee diyaaradda kana baxa daaqadda hoose shakhsigan oo si cajiib ah mishankan isu awaahulay inuu qorsheeyey inuu rabo wuxuuna rabay in ay u dhacaan wax kasta sida u qorshay Cobra ayaa baarshuudkiisa soo qaatay iyadoon ina u jeedin maadaama lagu amray in leerka gudaha la dambiyo diyaaradda wuxuu soo qaatay lacagtiisii asoo ku wata boorso isana soo baxay afartiisii baarshood ugu dambeyn laba ka mid ah baarshoodkii lacagtii dhexda ayuu ku xirtay markaas ayuu isku tuuray xaaladda adag ee waqtigaas jirtay ee kuladurka ma jirin cid aragtay markuu boodayey sababtoo ah ma jirin leerka gudaha ee diyaaradda mana shilleen waxaa jirtay ciidamada kale oo loogu talagelay inay soo qabtaan afduubaha waxaa jirtay ugu yaraan 2 diyaaradeed ka dambeysay ayagoo qorshahooda uu ahay marka ay diyaaradda degta ugu horeen in ay marka ugu horeysaba ay soo qabtaan balse ninkan wuxuu ahay nin aqli badan mana jirin qof arkay markaasuu booday diyaarad ah ciidanka ee daba socday FBI-du waxay ka baareen buuraha webiyada iyo keymaha ma jirin qarshuub la helay mana jirin qof meyd ah oo la helay sanadkii 1980kii sheekadu waxay qaadatay weji cusub wiil 8 jir ah oo lagu magacaabo Bren ayaa ciidda ka soo qaaday hareeraha webiga Columbia wuxuuna helay 3 xirma oo lacag ah taas oo mar hore duugowday midaas oo ahayd in ka badan $5,000 Mareykanka waxay u dhigmaan kuwii loo dhiibay Cobra waxay FBI-da ku idii wareer hor leh haddii Cobra halkaas ku dhacay oo lacagtu biyuhu soo qaadeen aabi lafihiisii mise lacagtu iyo duufaantu maadaama lacagta la helay sidee uu asaga keliya isku maqan yahay waana kooshinka ama su'aalaha ugu adag ee isweydiinayeen FBI-da sanadkii 2016 FBI-da waxay si rasmi ah u joojiyeen baaritaankii lagu baadigoobayay ninkii loogu magacdaray DB Cobra kadib markii 45 sano lagu fashilmay in la helo kiiska keliya ee afduub ee diyaarado aan weli la helin taariikhda Mareykanka